door wanaagsan saaxiibayaal sidaa u dhantiin meel kastoo aad dunida ka joogtaan fadlan hadday tahay daawashada ku waraysa channelka soo booqatay subscribe inoo saar intaas waa ku mahadsan tahay si aad markasto aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee shaxdeen maalinlaha ah marka intaa kadib waxaan rabaa asxaaba in isla fiirino shaxdeen xalay tan kalena waxaa weligiin ogaataan weligiin waxaan idiin dhahaa nasiibkaaga ayaa markasta ku saacidi doona nasiibkaaga wixii kuu qoran marna ma weynaysid marka waxaan rabaa shaxdeena xalay sida ay u dhacday waxaa hoosan kasoo bilaabeynaa Salzburg iyo Dinamo Zagreb bal fiiri ayaa shaxdeen qayb ka ah Salzburg sida u jeedaan waxaan ku saadaalinay inay badi karto ama ay baraj heli karto daqiiqadii ma qaan 8 meedii ma maslaxin meedii at least meelahaas ahayd ayay gool heshay hal rigore ba ahayd umaleynaa rigore heshay rigoradii marka halkii everkiin ku dhamaatay sidaas ayaan ugu ku helnay soo soco Sevilla iyo Borussia Dortmund Sevilla iyo Borussia Dortmund Borussia ayaa waxaan ku saadaaliyay in aanan looga badi karin handicap isticmaalay total handicap 2 daas waxaa laga wadaa Borussia Dortmund oo qaybta labaad ah Sevilla koow ah laakiin Borussia Dortmund qaybta labaad ah in looga badi karin laba gool macnaha hal gool waa meesha hal ku qoran halkaas laakiin laba u dhigma macnaha opportunity haysta hadii hal laga dhalay hal iyo eber looga bado refona helay laakiin hadii laba looga baday waa loss Borussia marka labada gool iska daay afar ida ku badaysaba oo Sevilla afar lagu garaacay sidaas ayaan afar iyo hal ku dhamaatay tan saddexaad oo shaxdeena qayb ka ahayd Real Madrid iyo Shakhtar maxaa Donetsk Real Madrid ayaa waxaan dhahay toos way badinaysaa Real Madrid laba ayaa ku hormartay gool laga dhaliyay sidaas ayaan ku dhamaatay laba iyo hal ay guush ku raacday cadcadka Real Madrid tan Benfica iyo Paris sida ka warqabtaan Paris iyo Benfica boqolkiiba boqol dadka waxay dhahayeen Paris ayaa badinayso markana Paris waa qanaa sida shaxdeena shalay ku sheegana xillibo iyadoo waxaa la marba si waay habeen way kacsantahay habeen way ka dansantahay laakiin Paris inta badan lagu matasha karo Benfica meesha maxaa ku saadaaliyay handicap 1 Benfica anda 3 gool ma looga badi karo waa 3 gool ma looga badi karo aaba 11 senti saarneed marka Benfica Paris hal gool ay dhalisay balse waa laga daba keenay sidaas ay waxa ku dhamaatay hal iyo hal kaliya marka meesha waxa ku dhamaatay hal iyo hal oo because wax kala badashay ma jiro 3 gool ma looga badin ba 3 gool saan hadda waxay loos ku noqon kartay Benfica hadii lagu garaaci lahaay afar iyo hal hadii ciyaartan ku dhamaatay loos laakiin xal lagu garaaco hal iyo hal ay ku dhamaatay soo soco Manchester City iyo Copenhagen maadaama City ay badinaysa waxba saarneen marka inay badinaysa la isku ogaa marka posting to score no one half isticmaalay waa ogaay inay Copenhagen aysan gool ka dhalin karin City oo hab difaaciyeedkeeda aad u wanaagsan shaxdeena hore waa ka soo daawan kartaa saasan kugu sheegay City in laga dhalin karin waa ogaa sidaas ayaan posting to score no ay ahayd marka Copenhagen wax ma dhalinbo guud ahaan ciyaarta wax maran waa aniga inkastoo macna hawl half aan ku saadaalay kaliya soo soco Juventus iyo Maccabi Haifa arkaysan Juventus badinaysa toos 3 iyo hal inay ku badisiin idinka markaati ka meeshay baasha ka cilada ka timid meesha waa bal fiiri meesha Chelsea iyo Milan maxaa dhahay bal si fiican ila fiiri Chelsea iyo Milan waxaa dhahay Milan 3 gool ma looga badinayo labadaas waxay u taagan tahay 3 because hadii laba kaliya looga badi lahaay Milan AC Milan hadii laba looga badi lahaay refona helin oo guuleysaneen 3 gool aba looga badiyay marka nasiibkaaga markasto oo ku saacidi doona hadaadan waxaan nasiib u lahayn ama calaf wal ma bahelisid waa xaqiiq 3 gool aa looga badiyay AC Milan ani ma qabin 3 gool in looga badi karo Kibanoni وأنا على أبوك مركلا بين ما 3 gool labadaas wuxuu taagan tahay 3 gool fahma 3 gool u taagan tahay
laba haddii looga badala AC Milan Buffon ah helayaan laakiin saddexdii looga badshay saasayna ee loosku timid marka dhib ma lahan macnaha waxaan videoga idinkula wadaagay inaa ogaataan nasiibku wuxuu yahay oo keliya waana mahadsantihiin saaxiibayaal